السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي يوتيوب كيغا كوحران كليين ولي صلانيا داودا يالكوسو دوادا channel العصوب سبسكرايب سار لايك شير مردارو غارسي فيديوغان لو ودايق عبكا يو فامير كاغا waxaan doonayaa maanta inaan gudbiyo dagaalka saddexaad ee adduunka oo ka dhacaya bariga dhexe Israa'iil waxay la dagaalamayaan wadanka Iran aan gantaalo fara badan ay ku afuuftay Tehran magaalooyin fara badan 200 oo qof Iran ku nool baa dhintay saas daraadeed Iran baa gantaalo fara badan ku celiyay wadanka Israa'iil Donald Trump wuxuu yimid dalka Canada shirweynaha G7 Summit magaalada Calgary laba cisho buu joogay laakiinse wuxuu maqlay dagaalkii ka dhacayay Israa'iil Tel Aviv Netanyahu wuxuu yiri America big trouble ay ku sugan yihiin waxba hada qaban weydid New York ayaa la xasuuqaya marka saas daraadeed Donald Trump expose buu soo dhagay wuxuu yiri Washington DC baa ku noqonaya National Security Council soo yeedhay marka wuxuu yiri diyaargarooba xanjabaad buu u dilayay dalka Iran wuxuu dadweynaha ku nool magaalada Tehran wuxuu yiri si dhaqso ugu badan ka baxa magaalada walidiin xasuuqaya marka wallahi xaaladu yara adagtay ya imika Iran China iyo Pakistan waxay hiilinayaan iyo waxay garab istaagayaan wadanka Iran China xub fara badan way leeyihiin militarygooda AI-gooda waxaan ku uri qalabkiisu uu ku fiican yahay wadanka America haddana Pakistan waa wadanka kaliya oo muslim ah haddana waxay leeyihiin nuclear bal ka waran Carabta oo dhan Bahrain haday noqoto Saudi kulligooda ma haystaan ma garanaysaa ma haystaan nuclear dagaalka sidoo noqon doono lama garanayo Iran waxay ka mid tahay kooxdii BRICS okay wuxuu ay sameysteen China South Africa Brazil Ruush ba ku jira Iran bay ku biireen ma imika Netanyahu wuxuu rabaa madaxweynaha Iran inuu meesha ka baxo si ay ma aragtay Middle East ka bariga dhexe oo dhan inuu control buu rabaa xaaladu way yara adag tahay is America it looks like America's going to respond so wallahi it's very devastating Somali fara badan mar arkay oo Iran wadad xun oo washiici oo Soomaaliyeed garab istaagin war halkee lagu arkaa caalamka dawlad shiici ah oo dawlad sunni haday wax talayso heede waxay caawin lahayd Palestine so marka beentaas ku sheegano maxay tahay war dagaalkan waxa ka dhaxaya Iran iyo Israa'iil okay Somali hadaan nahay dadkeena hadaan sunni muslim aha sunni muslim baatihiin laakiin walaalaha 30 sano baris dilaysiin qabiil dartiis baad ma aragtay ayaa dagaalamaysiin qabiil ba ka shaqaysiin ma garanaysa Soomaalidu oo dhan way isnacib yihiin so marka maxaa ka galay Iran iyo ma aragtay waxay aaminsan yihiin waxaas war Iran waa wadan shiici maaha Iran waa dad muslim shiici ama sunni waxaas waxba kama gelin waxaas waa dawlad Islam xitaa adduunka oo dhan waxaas helimaysid so marka this is a good opportunity for Somalis to build their country and this is a good opportunity for Somalis to get really good control over East Africa, their maritime coast, their oil, their resources. So I'm hoping for the best. I don't know what's going to happen, but it looks like there's going to be World War III soon. Marka, isdiyaariya, Somali hadaan nahay, Somalia, don't get involved, worry about your own affairs, worry about your own country. Inshallah, hormar fiican baridiin rajaynaya. So marka, videogan hadaan intaan u gaadhaan subscribe sar like share please get me to 1000 subscribers inshallah bi'innillahi kareem I love you guys kulligiin wadini salaanaya assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh